qaybtan waa qayb galley ayadana galleyda inta la isku jirsiinay fiiri just 15 centimeter isku jirtaa galleyda 15 centimeter bahalka sidoo noqonaya laftiisa fiiri that's why you are being told lagu dhahay Kenya maxay galleyda aad ugu soo saartaa waa habka loo productionka loo sameeyo haddii aad hab maartay heer sare u isticmaashid bahasha waxay noqonaysaa bahal production badan lafteeda bahasha intee la egta fiiri just 15 centimeter isku jirtaa يعني هل تاكو 15 سنتيمتر waxaa ka wadaa hal taako geed kale ugu jira taako u jira fiirso okay that's taako geed kale u jira production keedana ma xumo waa intuu si doonaa habka u soo wax saarayso marka that's why ay Kenya ay galleyda aad ugu soo saarto uguna horumareen marka horeba habka loo abuurayo habka loo talaalay yaa maartay xoog la saaraa meeshan waa school wax lagu baro schoolkan waxa waaye ardayda lagu train gareeyaa 6 bilood dadka maartay beeraha waxba aan ka aqoon 6 bilood oo kala lagu tababarayaa wax walba all about farming baa lagu barayaa qaybo kala duwan agripreneurship horticulture yani habka fruitka yani qudaarta loo soo saaro kooska horticulture laha yani wax walba aad ku baranaysaa ayadoo beerta managementigana ku baranaysaa greenhouse management baa ku baranaysaa marka waxa waaye wax lagu daydo waxa waaye company private iska leh wax lagu daydo way tahay oo maartay ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ku daydaan galleydi oo waaweyn waa tanaa just wata in sheegayay waa iskuulkii laftirkiisa ardayda lagu train gareynayay look marka aan fiirino marka tan hal xabay dhashay kuwa sida caadiga u soo baxay si fiican u soo baxay fiiri hadda tan laba xabay wadaa badankeeda laba ay u saaran tahay laba isku saaran tahay qaybtan waxaa loo abuuraa single ya galleydan loo abuuraa waa kuwa halka loo abuuro wana kaasa bahal waaweyn bay dhalaysaa bahal waaweyn ay dhalaysaa ayaka dhanba laba u saaransay productionkan waxaa waaye habka isugu xigaan sida isugu dhadhow yihiin waad aragtaa habka isugu dhadhow yihiin qaybta kale waa u dhowdahay laakiin productionkeeda iyo habka loo soo saarayo yaa waxay tahay wax aan maartay inaba maartay aan la yaabayo cajiib ah that's why Kenya ay u gaartay xagga productionka galleyda highest level yani East Africa dawlad ku gaaraysa malaha Tanzania ku soo dhow markii Kenya laga imaado Tanzania ku dhow xagga productionka galleyda hadda qofkan fiir intuu la egyahay weyninka uu qabo ma sha Allah aad buu u weeyahay kan kala fiiri balkan xabadkaas laba u saarinayaan xataa mid yar oo saddexaad wakaasa qayb ba saddex leh laakiin badanaa laba u badan yihiin saddexda wax productionka lagu tashado ma aha laakiin mostly laba galleydan oo dhan laba ay u haysan tahay galleyda isla iskuulkii baa bixinayo oo meesha iskuulka ayadana ku taalaa ma sha Allah inkastoo ayaan nafta u keeneen laakiin waxa waaye productionka meeshan galleydeeda ma xumo waa fiican tahay ma sha Allah meel fiican ay maraysaa si fiican ay u socotaa qobka waa waaweyn yahay aad ba waaweyn yihiin isku dhaweynta aan ku sheegay waa kuwana si isugu dhow yihiin just single maize waxa loo abuuray faa'iidadaas ku jirto waana la isku dhaweynayaa tiina laba xabay ku dhalaysaa space ka fiiri spacing